Okay, muuqaaladii hore wuu ka duwan yahay. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa website-ka loo yaqaano Go Transcription. Go Transcription haddaba waxaa lagu soo daray luqadda Soomaaliga. Qof waliba oo daneynaya shaqada transcription-ka ama online jobs-ka waxaa si sahlan ama si fudud u samayn karaa transcription jobs asigoo tagayo Go Transcription website-kooda. Haddaba marka si aad u noqotid transcriber, si aad u noqotid waxaad u baahan tahay inaad laba testi kasoo gudubtid. Testiga koowaad oo ka kooban yahay 10 su'aal iyo testiga labaad oo audio transcriber ah. Haddaba marka waxaan dooranaynaa translator, ma rabno transcription aan rabnaa. By the way, transcription jobs-ka aad bay payable u yihiin ama waxay ka mid yihiin shaqooyinka online-ka laga qabto dhaqaalaha badan lagu bixiyo. Bal fiiri meeshaan halkii daqiiqo waxaa lagu bixiyaa $1.75. So waxaan leeyahay become a transcriber. Luqadda Soomaaliga lagu soo daray, taasi nasiib bay noo tahay maadaama afka Soomaaliga uu noqonayo luqadaha caalamiga uu qayb ka noqonayo. So meeshaanaad furaysaa, luqadda Soomaaliga ka dooranaysaa, apply now waa leedahay. Apply now markaad dhahid waxaa kuu soo baxay column-ka isku diiwaangelinaysid. Actually halkaan aan rabaa Gmail-kan halkaan gelinayaa. Gmail-ka aan rabo inaan isku diiwaangeliyo halkaan gelinayaa. So Gmail-kaygaan gelinayaa. Okay, kadib password-aan u samaysanayaa. Okay, halkaan Gmail-ka gelinaysaa, kadibna waxaa u samaynaysaa password u samaynaysaa. Now waxaan leenahay marka create aan ku dhufanaynaa. Then waxaa inoo soo baxaya testiga la rabo inaan kasoo gudubno. So testigaan sameynaynaa, kadib waxaan u gudbaynaa qaybta audio-ga. Meeshaan password-ka iska save garayso. Su'aasha koowaad marka testigan si aad u apply garaysid transcriber position waxaa laga rabaa inaad 100% su'aalaha inaad ka jawaabtid. 100% jawaabid maahan, correct answers inaad heshid 100%. Means hal haddaad qaladid waa lagugu soo celinayaa. Now marka su'aalahan ka jawaabaynaa. Su'aasha koowaad just waan ka wada jawaabaynaa, waxba ma aqrinayno. Kulley website-ka haddaad booqato su'aalaha waad arkaysaa, toos jawaabaha idin siinaa marka. Su'aasha labaad. Okay, su'aasha saddexaad. Su'aasha afraad waa B. Su'aasha shanaad waa F jawaabteeda. Su'aasha lixaad jawaabteeda waa A. Su'aasha toddobaad jawaabteeda waa B. Su'aasha siddeedaad jawaabteeda waa B. Su'aasha sagaalaad jawaabteeda waa B. Ta tobanaad jawaabteeda waa C. So haddaba marka jawaabaha kelito say kula tahay loogama jawaabo. Waxaa lagu base gareeyaa guidelines-ka ay ayaga leeyihiin. So guidelines waxay leeyihiin oo halkaan ayaad kala soo degi kartaa ilaa dhowr page oo guidelines ay leeyihiin waa akhrinaysaa, kadib su'aalaha jawaabahooda way kugu sahlanaanaysaa. Okay, waxaan leenahay confirm si aan u soo gudubno qaybta xigta. Okay, meeshaan verified eh. Okay, confirm waan ku celinaynaa maadaama verification uu noo diray. Fantastic. Qaybta labaad waa kana marka. Codkaana la rabaa inaan bedelno. Codkaana waxaan u bedelaynaa qoraal ahaan. So qaybta koowaad aan kasoo gudubnay, qaybta labaad waxaa waaye codkii aana loo dhiibay inaan qoraal u bedelno marka. Apply for transcriber position. To become a transcriber, you must do our test job using our guidelines. So shuruudahooda aad ku samaynaysaa. You need to transcribe the audio below. In other words, you need to type everything that you hear. Also, don't forget to use our transcription rules. Sharciyadooda ku dabaqaysaa. The test job needs to be done in a clean verbatim without timestamp. So waqti laguma qoraayo, timestamping ma laha. If you want, you can try our old. So haddaad intaadan sameynin waxaad fiirin kartaa kuwa old ah ama kuwa ayagu ku jiro example ahaan usoo fiirin kartaa. Therefore, you will see what errors you have made. So qaladaadka samaysay ama aad samayn doontid halkaas ku arkaysaa.
guidelineskan halkaasaa ka furan kartaa. So codkii waa kana anaka waan sameynay, codka waan sameeyey, hore aan u sameeyey, so waan daaraynaa, waan isku fiirinaynaa marka. jaamacadaha dalka professor soo dhow Professor Maxamed aad baad u mahadsan tahay runtii waa mowduuc weyn oo ay tahay in aad loo falanqeeyo ka macalin ahaan waxyaabaha aan xusi karo waxaa ka mid ah in waayadii u dambeysay ay aad usoo kordheen gabdhaha soo gelaya jaamacadaha iyo dhammaan ama guud ahaan waxbarashada waxaadna moodaa in dadkeenu sameynaya korukac walibana dadku aad u baritaarayo in gabdhuhu wax bartaan maasanta teeda kale transcriptionka markaad sameynaysid erayada soo noqnoqda waad saxaysaa, yani clean verb waxaa laga wadaa inaad filerska dhan ka saartid erayga ku habboonna aad isticmaashid. meelaha qaar hadda baritaarayo u dhahay dhiirigelinayaan isticmaalay. Okay, aan sii wadno. aad baad mahadsan tahay runtii weli waxaad moodaa in ay yar tahay marka loo eego nambarka dhigta jaamacadaha ee hablaha ee gabdhaha ah marka sanadii u dambeeyey waxaa jirtay so meeshaan uu soo celceliyo, marna wuxuu dhahay hablaha, marna wuxuu dhahay gabdhaha. so adig as a transcribe waxaa laga rabaa clean inaad ka dhigtid, waxa soo noqday dhan ma qoraysid, kelitu siday jumladu u tahay aad u qoraysaa. so gabdhaha isticmaalay intuu hablaha uu soo celcelin lahaa gabdhahan. arday oo soo qalinjibiyey halka ay nambarka gabdhuhu ka ahaayeen nambar aad u tira yar marka weli ma lays odhan karaa axmed in weli ay jirto caqabadii ama gaabki weli uu jiro ma la odhan karaa runtii maya taa lama odhan karo waayo marka aad u eegto awal intii wax baran jiray dhinaca dumarka marka ragga la barbar dhigo iyo hadda inta wax barataa waa laba marka guud ahaan saasaan u sameynayna transcriptionka oo dhan. so magacyadooda isticmaalaysaa, wareystaha la wareystaan waad isticmaali kartaa. so guidelineska haddaa fiiriso waxaasan waad arki doontaa, laakiin hadda maadaama magacyadooda aan maqalnay, so magacyadooda iska isticmaalnay. kadib waxaan leenahay send it for review. kadib pagekana kuu soo baxay, micnaheeda waxaa waaye waa apply garaysay, waxaad sugaysaa shortlist in lagu soo qaato, review ay sameeyaan, kadib lagu soo qaato.